بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الكرام، كلمات فربضا مصير ورانيو مشايخ واوين وأجلاء يا جوغان وماركتي كوهبون إني كلمات كيراهدان أعلام تاني أعيان تاني رقواوين ويهدين، لكن إن شاء الله تعالى اتضاف يردي إلهي راهدو كلمة يربان إن شاء الله تعالى ورانيا sida mashaayikda ay noo sheegeenba tashayuca ama shiicadu waa shay aad iyo aad u xumaan badan, madhab aad u liito oo aad maaragtay haddii lagu ron yahay culummada islaamka ay u dhaleeceeyeen oo laga hadlay weeye. calaamayna leeyihiin qofka shiici markuu yahay haddee waxa weeyaan waa yani waxa weeye caqiidada lagu aqoonsanaya xagga ictiqaadka markii la eego yaa la ogaanayaa yani waxa weeye waxay shiicadu aaminsan yihiin qofka hadduu aamino ama masaa-ishoodii iyo hadalladoodii uu ku hadlo oo muctaqadkoodii uu ictiqaadiyo, qofkaasi shiici weeyaan. alimaamu dahabi raxmatullah caleyh wuxuu leeyahay kitaabkiisa miisaan lictidaal, ibnu xajarna lisaanka uu kusoo qaadayaa fashiiciyu lqaali, qofka shiiciga ah oo weliba shiicinimadiisa ku xadgudbay fi zamaani salafi wa curfihim, zamankii hore oo salafu saalix, man takallama fi cuthmaan wazubayr wa talxa wa mucaawiya wa طaa'ifatin miman xaaraba caliyan dadkii sid cali oo xarbiga dhex maray oo dagaalka yani uu ka dhex dhacay, dadka hawsha isku mashquuliya oo hameen iyo maalinba uu shaqo ka dhigta oo afka hadday kala qaadaanba zubayr bin cawaam iyo dalxa iyo maxaa ahayd hadii lagu ray mucaawiya ibn sufyaan iyo sid cuthmaan iyo dadka noocaas ka hadla oo hawshooduba meesha ay tahay hadalkoodaba meesha uu ku wareeganayo, shiicadu kuwaasaa loo yaqaanay buu yidhi xilligii yani waxa weye salafu saalix. laakiin wuxuu leeyahay watacarada lisabihim, oo caydooda u banbaxay, dan kaleba aan lahaynba, hameen iyo maalinba ku dhex jira inuu caayo. yani zamankii horeba shiicada calaamaadka lagu yaqaano waa tacarudkaas oo saxaabada loo banbaxo, khaasatan yani dad asxaabta nabiga ka mida calayhi salaatu wasalaam si gooniya loo bartilmaamaysto, waaba calaamada lagu yaqaano shiicada weeyaan. marka iyo waxa weeye meesha ay kasoo bilaabataba bilowga koowaad waay. sidoo kale imaamku wuxuu leeyahay wuu sii wadaa walqaaliyu fi zamanina wa curfina, raggaa salafkay ahaayeen, annaga waxa weeye shiici qaali ah zamankan culummada waxay u yaqaanaan huwa alladii yukafiru haulaai saada wayatabara'u min ashaykhayn, kaasaa la yidhaahdaa waana wuxuu yidhi daali oo muftari ah weeyaan. marka sidoo kale imaamka isagana weyn oo cajabta badnaa asna wuxuu yidhi imaam alawsaaci yaa la su-aalay, waxaa la yidhi nimankan shiicada ah iyo annaga wax taqaarub ma naga dhexeeya, yani ma isku soo dhawaan karnaa, ma xiriiri karnaa, ma heshiin karnaa? maya buu yidhi, law kaanat fi dunya kaanat ilmuqaaraba, ikhtilaafkanagu hadduu yahay adduunyo waanu isku soo dhawaan lahayn buu yidhi, walakinahu diin, ikhtilaafkanaga diin weeyaan buu yidhi, waxaan isku khilaafsannahay waa diin buu yidhi.
marka hadalkii hadda Sheekh Cabdilxiin uu sheegayna sidoo kale Imaam al-Qurtubi ayaa kusoo guuriyay kitaabkiisa la yiraahdo Jaamic al-Qur'aan oo tafsiirka Qur'aanka Kariimka ah wuxuu leeyahay tafaadalat al-yahuud wan-nasaara 'ala ar-raafidati bi khasla hal khaslo yahuud iyo nasaarada ay kaga hoyn yihiin nimanka la yiraahdo raafida yahuuda markii la su'aalayay in kugu khayr badan ahlu milladina waxay yiraahdeen asxaabu Muusa nasaaradina waxay yiraahdeen asxaabu Ciisa laakiin shiicadu markii la su'aalay man sharru ahli millatikum qalu asxaabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam umiru bil istighfar lahum fasabbuhum istighfar bala amray wa ayyan wuxuu yiri fasayfu alayhim masnun ila yawm al-qiyamah marka insha Allah ta'ala khilaafka naga nimanka shiicada la yiraahdo aanu iskhilaafsanahay waa khilaaf aqadi ah waa khilaaf oo usuli ah waxaanu isku khilaafsanahay waxa weeyaan waa masaadir tashriici way kitaabkii Ilaahay bay taxriif ku sheegayaan ziyaada iyo nusqaan baa ku jirta ilayhiin aymadooda iyo maaragtay mashaayikhdooda dhan mutaqaddimiintooda iyo mutaakhiriintooda aktarkooda yaa isku ittifaaqay kutubtoodii la cuskanayay ya ku sugnaatay inuu qur-aanku yahay muxaraf oo uu jiro misxaf la yidhaahdo misxaf faatil qur-aanka kariimka in thuluthaankiisa ay maqan yihiin oo wax meesha yaalla thuluth uu yahay thuluthaanna ay maqan yihiin inuu jiro kitaab aakhiru zamaanka markii la gaaro maxay ahayd ninka la yidhaahdo almuntadar ninkay ku magacaabeen oo ay u yaqaanaan alqaa'im diinta ilaahay buu taagan yahay rabbi cajala allahu farajahu ay leeyihiin ninkaasaa kitaabka dhabta la soo bixi doona markaasaa waxa weeye ii sheeg la akrin doonaa inta ka horeyso qur-aankan muxarafkaadaanu iska akrinaynaa marka insha Allah tacaala caqaa'ida aanu isku khilaafsannahay waxaa ka mid a caqiidatulbadaa insha Allahu tacaala oo ah caqiido aad iyo aad u xumaan badan oo isku waafaqsan yihiin oo ay leeyihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa u sugnaaday waxa la yidhaahda badaa yaa u sugnaaday waxbaa usoo daahiraya wax hore uu jaahil ka ahaa oo uusan garanaynin yaa mar kastaba usoo baxaya badaa yaa la yidhaahdaa weliba waxay leeyihiin caqiidatulbadaa nimanka imaamiyada la yidhaahdo ama itnay cashariyada la yidhaahdo ama jacfariyada la yidhaahdo oo shiicada nimanka ugu daran ah ijmaac bay kulligeed soo guurinayaan hadduu yahay qummi kutubtiisa iyo hadduu yahay kulayni iyo hadday ragga kale maaragtay ay yihiinba waxay soo guurinayaan inay tahay caqiidatulbadaa caqiido ay isku waafaqsan yihiin nimanka imaamiyada la yidhaahdo ama itnay cashariyada waxyaabaha caqadiga ah oo mar kastaba waxa weeye ay sheegaan waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo al-imaama ama al-walaaya inay tahay rugni oo ka mid ah arkaanta islaamka bal waxay la dooriyeen xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam shahaadatu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammad rasuulullah wa iqaamu salaa wa iitaa'u zakaa wa sawmu ramadaan wa xajju lbayt waa dooriyeen meeshii shahaadateynka waxay geliyeen alwalaaya imaamada qofkaan ictiqaadin kaafir weeyaan bay leeyihin islaamba ma aha waxaa ka mid a waxyaabaha waajibaadka ay ka yeeleen oo ictiqaad ahaan ay aaminsan yihiin waxa la yidhaahdo attuqaya ama attaqiya tuqya waxay yidhaahdaan laa diina liman laa tuqyata lahu qofka hadduusan tuqyo lahayn wax diina male oo iimaana male bal lukayni iyo a'imadooda waxay yidhaahdeen alfaasil bayna alkufri waaliimaan assalaat way sida nabigeena uu sheegay calayhi salaatu wasalaam wakadalika tuqyada maca ahli sunna waljamaaca qofka hadduu dad ahlu sunnaa la joogo ama waxa weeye dad culamaa uu la joogo inuu isqariyo oo mabdi'iisa uu qariyo uu sunninimo sheegto oo dadka uu isku dhex daro mar alla markii dadka wax yaqaano ama dadka ahlu macrifada ah ay ka tagaanna uu mabdi'iisa markaas caddaysto dadka kaloo shiicada ah ama dadka uu wax u sheegayo jahalada ah inuu u sheego yidhaahdo
كذا وكذا وهي سيد أبو بكر بري بان كناهي سيد فلان بري بان كناهي قرآنك waxa weeye muxarraf weeye ziyaada ku jirta aayado badan baa laga xadfay in badan baa lagu daray kada wa kada weeye qofkii aan Sayyid Ali imaamadiisa iyo maaragtay diyaaliga tafdiilkiisa aan ictiqaadin gaal weeye waxa soo dhan inuu u sheego dadka markii aysan la joogin laakiin waxay qabaan at-tuqayya waajibatun ma'a ahli sunnati wal jamaa'a ومباحة وجائزة مع الكفرة. قال هذا وحبا سعد وحلو شيء لكن أهل السنة واجب نك هذو مبدأ الشيعي قاطع إنه إسقارية أو باركو إسقارية أو إذا لانو نسنية أنا هاي نأشعرية أنا هاي نقادرية أنا هاي ضد كم نشأ يبدأين كوا إنه إسقارية مبادئ سنة سوى صاد وفيديو وركن من أركان الشيعة الاثنا عشرية ركن ويان وحا أركان تودا كمدا أو يعني معتقدات تودا كمدا اعتقاد أو كفر أو ليرهدو الرجعة اعتقاد ليرهدو أو أئمة لبيئة طمانكا إلا السوء لنايو وكل جود بأدوية أي إيمانيا مركي انتهى يعني وحوى قبل القيامة وكل جود بقى حكومي دونان مركو انتهى مثل حكومية إن شاء الله مركي الرجعة واحد كمتها معتقدات كذا إلى كتاب كم حقيقية أكثر من 30 مسألة صد مسألة وحكم بدن وعقدئة oo noo dhaxeeya annaga iyo shiicada waliba khaasatan nimankan hadda weerarka ah oo ithnay cashariyada nimankaas in i'tiqaadka ahlus sunna wal jamaa ash'ariyya iyo maturidiyya waxay ku khilaafsan yihiin ay tahay akthar min 30 mas'ala oo masaa'ishaas culimada markii ay baxthiyeen ay yiraahdeen i'tiqaadkooda وحوى ومحاهد ومخرج عن الملة قف هدو آمنه أو اعتقاديه وحيابها اعتقاد سنه الاثني عشرية ده دين تبو كبحيا ما بقى هم بدعين ما معها مكفر ويان والعياذ بالله إلهي ما كما قلنا إن شاء الله تعالى اعتقاد كالنوع عاصة إنه إن شاء الله تعالى نفتر نظرنا أن كيلالينو أهل كأننا أنك دور نقول أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة مجتمعنا أنوجدنا أنا كبر نغنى إن شاء الله تعالى علماء يعني دعادي أهل الله وهي وحماشة فضية ننكستر ماشي وجوجو إن شاء الله تعالى نمكس بدعاء أو ويرك أو ماركت خاصة لوسو جهيي شرق إفريقيا bariga Afrika iyo geeska Afrika lagu soo jeeyay oo la og yahay oo waliba khaasatan hadii aan Soomaali nahay hadda bartilmaameed naga dhigtay oo mustahdaf naga dhigtay doonayana inay shacabka iyo atbaacda iyo alxamdulillah ta'ala awaamta inay baadiyayaan ayagoo ku gabanaya maxabada ahlul baytka nabiga calayhi salaatu wasalaam maca dalika ahlul baytka bari bay ka yihiin رافضة محل مقعابي رافضة نكي كو مقعابي وحويان سيدنا زيد بن علي والوجيه رفضوني بير ورني كان يتورين ويقتغين بير مكي كخالي النقضين وكهرين فلذلك وحل مقعابي الرافضة ساسا لهم مقعابي نمكي نوع عصاها وأهل بيت كالنبي التوري وعداوذ الوجيه وممارك تهديه لكورين حتى مكي شيء سيدنا حسين يا الله ورصدي sida kuleeyna kutubtiisa ku yaal iyo kuwa kalaba xasan ka waran baalee xasan wuxuu yiri nin imaam uu yahay laakiin laysa muftaradan taa'atuhu ina adeecna ilaahay nagu waajibin bal kutubta qaarkood waxay yiraahdeen kaana munaafiq buu ahaa xasan munaafiq buu ahaa anaga xuseen baan ugu adoonsaday inaan raacno mooyee xasan ma adoonsan marka waa dad aqraad siyaasi ah wada weeyaan إن شاء الله تعالى أهل السنة والجماعة هي طرق الصوفية كل قد بوحي بركيهين شيعة ناس هي ضدك أهل باطل كا أو خير كا الله نوع كستوئيهين با
كل جود بفرق ضادان مركي الاسكو صدره وضد مبتدعة وضد الضالة وضد أهل باطلة أو خير إيه بركة منا الله وين منا الله وين كمدا إن شاء الله تعالى أنت سامسون قابلنا يا وجزاكم